sidee loogu diyaar garoobaa imtixaanaadka? waxaan qiyaasayaa inteena badan in aynu arday wadannahay, arday iskuul, kuwa jaamacadeed ama macaahid kale. waxaan dhammaanteena doonaynaa in aynu guul ka gaarno waxbarashada iyo guud ahaan nolosha. waxaan jeclaystay in aan halkan ku soo qoro dhowr qodob oo aan u arkay in ay wax badan ka beddeli doonaan geediga ardaynimo iyo diyaargarowga imtixaanada dugsiyada ama jaamacadaha. imtixaanka ka hor. waxaa muhiim ah in ardaygu hankiisu sarreeyo, meel wanaagsanna hiigsado. 2. xusuusnow in maskaxdaadu ay leedahay awood aan la qiyaasi karin, taas oo aad ku fakari karto, wax ku xifdin karto, ama ku xusuusan karto. 3. ma jiro wax adag oo aan la baran karin, waxaase jira dadaal darro iyo hanyari ardayda qaar la soo gudboonaata. 4. ku xidhnaanshaha Alle, cibaadada iyo salaadaha oo lagu dadaalo waxay sare u qaadaa kalsoonida nafeed ee qofka. 5. ka fogow dhafarka iyo soo jeedka badan. 6. waa muhiim inaad soo toosto 30 daqiiqo ka hor salaada subax, tuko 2 ragcadood, kadibna ducayso, ummadana u ducee. habeenka imtixaanka. waxaa lagu taliyaa cunto dheelitiran inaad cunto cashada oo aad ka fogaato cunto dufanka ku badan yahay ama cunto culus oo dhaawac gaarsiin karta hurdada ardayga. 2. wakhti hore seexo. arday badan ayaa habeenkii isku daya in ay wax akhriyaan, arrintaasi waxay ardaygu ku keenaysaa in uu dareemo daal maskaxeed iyo mid jireed, taas oo sababta in ardaygu soo tooso isagoo caajis ah oo aan gacan dhaqaajin karin, macluumaadka uu xifdiyeyna ay isku qasmaan. 3. ka fogow welwelka. qaar badan oo ka mid ah ardayda ayaa kalsoonida ka lunta xilliga imtixaanaadka, wixii kuu qoran kuma gafayaan. Alle talo saaro, naftaada aamin oo ku kalsoonow, dadaal iyo juhdi samee adiguna. 4. iska ilaali adeegsiga waxyaabaha keeni kara dhafarka sida kafeega, moobilka ama tiiga. maalinta imtixaanka. wakhti hore soo toos. 2. cadayo oo weysayso. 3. salaada masjidka ku tuko, hana iloobin adkaarta subaxda iyo xuska Alle. 4. ha ka tegin quraacda, wax badan bay ku anfacaysaa. 5. soo qaado buugga maadada la geli doono, kadib si kooban u akhri mawduucyada waaweyn ee imtixaanka lagu keeni karo. 6. wakhti hore soo dhaqaaji. waa muhiim in aad soo baxdo wakhtiga imtixaanka ka hor si aad u hesho wakhti aad ku nasato. 7. ha iloobin ducada la akhriyo marka guriga laga soo baxayo, waxay fure u tahay ducadan hawsha aad qabanayso. 8. ha ku mashquulin wax aan imtixaanka ahayn. 9. koolka aad fadhiisato hoolka imtixaanka, Alle talo saaro, kalsoonina waa in ay kaa muuqataa. imtixaankii baa la galay. marka laguu dhiibo warqadda, ku bilow bisinka, kadib ku qor magacaaga. arday badan ayaa natiijo la'aan ku dhacda magacyadooda oo ay iloobaan awgeed. 2. hal mar wada akhri dhammaan su'aalaha, kadib raac tilmaamaha ku qoran warqadda. 3. fahamka su'aashii waa jawaabta barkeeda, si fiican isaga xaqiiji su'aasha. 4. ku bilow su'aalaha kuu fudud in aad ka jawaabto, kadib u soo laabo kuwa kugu adkaaday. 5. wakhtigaaga u qaybi daqiiqado, xoogga saar su'aalaha dhacdheer ee darajooyinka badan saaran. 6. haddii ay kugu adkaato su'aal, ha sugin, goob u banee oo ka soco su'aalaha kalena ka shaqee ilaa aad ka soo xusuusato. 7. dib u milicso jawaabahaaga inta aadan warqadda iska dhiibin, dib u eeg haddii ay jiraan su'aalo aad ilowday ama warqad aadan arag hadday jirto. 8. iska hagaaji farta iyo qaab qoraalka. qaar badan oo ardayda ka mid ah waxay darajooyin ku waayaan nidaam la'aanta warqadda ka muuqata. 9. jawaab kasta waa in aad ku qortaa lambarka su'aasha ay wadato si aan macallinku ugu wareerin. 10. marka aad bilaabayso jawaabaha su'aalaha akhriso ducadan. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الفتاح العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأن تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا أرحم الراحمين. fadlan la wadaag arday kasta oo imtixaan galaya si uusan u dareemin wax welwel ah.